السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وناكسن عدي قلب وطهي عدي هوين وطهين هوين وناكسن halkan waxaanu ka bilaabaynaa duubista waxaan ka soo dhaqaaqay horta halkaasaan ka soo dhaqaaqay metrogii waa kan Home Depot-gii waa kan Staples-kii waa ka suuqa dhan ee weyn baan ka soo dhaqaaqay baaxadda leh masaajidkii waa ka marka bal waxaynu iska waxaan yartaa taabanaynaa maanta waxyaalo waaweyn shalay waa tii doorashadii Mareykanka ku dhacaysay xalay baa la soo gabagabeeyay qoray tahay saq dhexe ayaanu waa berigii markay tahay yaa la soo gabagabeeyay dee waxay ku soo dhamaatay waa la filayay ninkii baa soo noqday Trump ahaa ayaa ku soo noqday saaxadda waxyaalo badan baana soo celiyaa la leeyahay yaa waa nin nasiib badan oo ankara ku dhacdi weeye nasiib badan marka waxyaalaha soo celiya waxaa ka mid ah kow Mareykanka oon dan ka lahayn inay haweeney u taliso ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah xasuuqa ka socday muddaba muxuu ahaay Gaza ayaa ka mid ah waxyaalaha dimuqraadiga la hadhay ninkani waa nasiib buu helay muslimiintiina waxa weeyaan iyo carabtii iyo wixii oo dhan way ku soo giirteen xisbiga dimuqraadiga oo iyagu la footayn jireen marka dee waka 4 sano oo kale soo noqday maxaad ka leedihiin dee wakaas yaala badan buu ayuu balanayo ninkan horta waa nin waalan nin maaha muxuu ahaayey nin la malayn karo maaha waa nin maskaxdiisu ciyaala suuq baad moodaa ciyaala suuq ma garanaysa ciyaala suuq ayaad moodaa marka dawaa ciyaala suuq soo noqday ciyaala suuq madaxweyne noqday weeye ciyaala suuq madaxweyne noqday maxaad ka filan kartaa waxa weeyaan nin la malayn kara maaha saaxiib ayaal balaag buuriyaashaas waa buuri waad karaysanaysa waa rental waa kan qalabkii oo dhan bay hayaan saaxiibayaal marka Mareykankii waxa weeyaan waxa ku soo noqday Trump xaaladiisa dee waa 4 sano oo kale in la qaada dhigay noqonaysa 4 sano oo kale yaa adduunka sidoo la dhaqmi doonaa waa wareer yahuuda sidoo la dhaqmi doonaa waa wareer kale يعني waa ninkii bixiyay waxa weeyaan
ninkii ku dhaqaaqay waxyaalahayna madaxda adduunku madaxda Mareykanku ka gaabsan jireen darbiyadana madaxda Mareykanku ka gaabsan jireen ayuu ninkani muxuu ahaa ka talaabsaday waxaa ka mid ahayd marka uu ku dhawaaqay marka uu ku dhawaaqay halkan baan maraynaa maanta awal halkaasaan mari jirnay dhinacan baan maraynaa inay yuhuuddu muxuu caasimad ka dhigato Qudus waa ninkii sameeyay weeyaan weligeedna Mareykanka madaxdii soo martay iska kaasan ka soo baxnay maalin dhow kaasan ka soo baxnay ciidadan baan maraynaa maanta awalna waan soo marnay maalin hore aan soo marnay marka waa tii taramkiisii hore waa kii muxuu ahaa Qudus markana maxaad filaysaa laakiin yuhuudda Qudus ka dhigtay caasimad bari iyo galbeed iyo wax la sheegay ma ogolin halkan waxaa soo nasanayaa adiga arkaya xunasi 400 mitir tent line bay noo jira tent line waa dhinaca 700 mitir waxay noo jira inas la garata marka ninka Trump oo mar kale soo noqday maxaad filanaysaa waa nin aan la malaysan karayn waxa weeyaan ma ahin nin u qalma runtii madaxtinimo nin u qalmo maaha madaxweyne Mareykan nin u qalmo maaha laakiin waa nasiib baasho عشان إلهينا واقعي شيء عدوا دونه كرق عدا عدوا دونه خاص لك عد مركا هنا واعين كاس على كل سيكون ليستي حسيكون ليستي وحوي محوك يعني كراوي جهورير الديمقراطية هيستعدد ما ملينكرت adduunka muxuu ku soo kordhin karaa qasban buu sii gelin karaa waa laga yaabaa maxaa yeelay ninkaas khayr leh maaha وين أركينا يعني ترم كيسي هوري ما قاعد يكتو مرة الله مركي أو لوري جاي كرسي جانوري كنس لو كن يو لحية طبعا كمية ويسمي مركي بهو قضاء بهو صوص عليه ورير دون كل نجاوري حكم إذا هام هاي حكم إذا ها حكم إذا ها إن
مسلمين تواكي كبانكري أحلى روح مسلمون نصو قليا وما جرتو أكيد ماركت كل كوام هاري كل عضي أني يفوت جعل نتنياها يمكن وسوهر وسوق قدمي تغييردي يا همبلياد نيكي ugu horeeyay madaxda adduunka Netanyahu ha isla shalayna wuxuu eriyay ninkii ninkii dilaaga ahaa dadka la gumaadaya ayuu eriyay markay iska hor yimaadeen arrimo yakow gaara marka marka ninku waa nin sidaas waa nin yahuudda jecel Netanyahu aad bay isku dheer yihiin xala wixii Netanyahu ka codsado ayuu samaynayaa waana loo yaabaa Falastiin iyo waxaan carabta oo dhan wadnahay farta ku hayaan ay nin la maraysan kara maaha la maraysan kara maaha carabta oo dhan farta iyo wadnaha ku hayaan Sacuudiga ninka ku yidhi wey yaa Sacuudiga ayuu wuxuu ku yidhi waa dhagaysta buu yidhi anaka inaga celinayna Iiraan wallaahi haddaan halkaa hubkayga kala baxo inaad habeen maalin ugu qabsan karaa ninka ku yidhi wey dhabtaaydaad ku fadhidaan buu ku yidhi anaa difaacaya waana run difaaca Maraykanka iyaga iyo carab oo dhan hoos jooga Sacuudiga keliya maaha carab oo dhan iyo adduunka oo dhan waddan aan ka haybaysan ma jiro Maraykanka waddan aan ka haybaysan ma jiro dii halkaa maxaa sheegaysa anigana waa ninka caynkaas waa ninka caynkaas kabtamaya maaha ma garanaysa dhismaha neeg korontada dhismaha korontada halshaasi imse 1,000 kilowatt way xamaysaa yeesda qaab loo dhisay rukumada ku fadhido qaab loo dhisay Hasan mar iskash waxaan kaloon ay tahay inaan ka hadalno waxa weeye ninkii horta waa la qabtay Haashim Dhaqane waa dilaagii Soomaaliga ahaa serial killer kii Soomaaliga ahaa weligeed yani waa loogeyn Soomaalida qaar badan oo serial killers ayaa jiri jiray laakiin de waan la xisaabtamin marka serial killerku waxa weeyaan waa wax qofka serial killerka noqonaya yaa horta waa smart waa qof aad khatar u ah xagga maskaxda laakiin waxaan wuxuu dhaxal hidde ayuu helay inuu serial killer noqdo marka waawoyaashiisii hore ayaa laga yaabaa inay samayn jireen inay dili jireen dadka
laakiin dee dhulkan imika casriga waa la yaqaanaa serial killerska oo dhan dad ku caanaa jira jeelashay ka buuxaan marka qaarkood dumarkunbay dilaan iminka ninkan sidaa muuqata dumarkunbuu dilaa waayo waxaa la yidhi Ethiopia ayuu markii hore ayuu ku dhashay oo xaggaas u joogi jiray xaggaas gabadh buu kusoo dilay oo qabi jiray ayuu kusoo googooyay jarjaray waliba killers ku soo ka qarbo nooc kani waxa weeyaan qofka qorb buu jaray qaar waxa jira diluun dabeedna aan googooyn laakiin qofka markaa ama halka ka taga ama muxuu ahaayay laakiin ninkan waxa weeyaan waa serial killer khatar ah markaa imika waxa soo baxday xitaa gabadh maalin dhaweyd la waayay bishii October dhexdeeda la waayay inuu jarjaray yaa ayay hay'adaha nabad sugidda si ay diidan dambi baadhistu sheegayaan DIC baa la yidhaahdaa waan u malaynayaa xagga Kenya ka talaabayna teel ka dhigo kaas marka ninkii Hashim ahaa Hashim waa magaca uu ku jooga Kenya sharciga Kenya ku qaatay Hashim Dhaqane hebel Dhaqane ayaa la yidhaa ninkaas waa dilaa dadka muxuu ahaayay nin dadka dilay weeyi serial killer ayuu ahaa aan la ogeyn gabadh buu dilay maalmahan gabdhahan 2-3 gabdhood isdhalay qoyska ahaa ka hor gabadh baa ayuu dilay baa la yidhi hadda soo baxday marka waa ninku waa dhinacaynkaas ah de waa nin shar meedhana ilaahayna waa soo qabtay waa shar meedhan ilaahayna waa soo qabtay marka waa in dee waa xabsi daayin kolay lama dilo dalka Kenya xabsi daayin nuun buu gelayaa yaa marka ninkaasina waa caynkaas waxaan kale oon ka warramaynaa hadduu ilaahay ka dhigo
saan idiin sheegayba horta wararka dadka wararka ay siinaya iska ilaasha YouTubers iska ilaasha wararkooga ha qaadanina subscribe hasiinina maxaa yeelay wararkay baahinayaan beenta ee kadibka yaa haddaad subscribe u noqoto qof xumo YouTuber ah oo wax xun faafiya dembigood kula jirtay ogow ilaahayna maxaa garanaysa وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور marka waa xum nimanka wararka faafiya tiktokers youtubers you name it facebookers iska ilaasha wararkooga ha qaadanina maxaa yeelay waxa weeyaan badankoodu waa beenaalayaal wey misleading ee dadka ku samaynayaan dadka isku dirayaan qaarkood baan wax kaleba ka shaqaynba billahi amarkiisa waa kuwa xumaanta faafiyo oo dhan subscribers ku cir ku jira xumaanta kuwa faafiyo oo dhan yaa waad la yaabaysaa moogta wanaaga kuwa sheegana ma arkaysid wax subscribe garaynaya ma arkaysid lama baahna dee sidaas xumaanta in la joojiyaa loo baahan yahay oo la yidhaahdo war adeer naga daaya xumaanta aanoo sheegin waxaas la yidhaahdo أنا كنيسة دا يا كنيسة داس لا كنيسة دا بمش سكربا خورنا يجي هو رامي أنت إسكو جرانك أنا وحلي حلقة جاوينينا تبقى خلاق هذا نوارد قلوا أنت ده قلوا اللي بماركت وحي يرى هزت membership كوك عيسى ينود عبوديا مقرنس هذا قلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يعني وإني وذين مديين بعد مودي سادوشة لكن ما همت هذا أنت تسكت جيرانك لوا كنيسة ضد فيه عيسى يود عبودان هذا نضب كما خلقاتان نقبوا عينك قارب وحويان ومساجد وحويان حضرك سام مساجد كسوفي مساجد كمحيقة مساجد نقبوا عينك للياب ملح حاجة نقبوا حسنا هنا نقبوا عينك السوفية هي وقوة كلام حياة سلفية هي سوفية لسكوية صوبة actually الإخوان المسلمين كوا حويان كوا معقول صن لكن كوا سلفية الشيكتي كوا سوفية لقط المعمي ولا تسبق قوان مملينس إنك سوبري هراون كانيا joog jiray Kenya meel taanga leeyahay ayaa waxay wada joog jiray suufiyada iyo salafiyada walka suufiyada hal masaajid bay ku lahaayeen
شيخ محمد قوليد أيها شيخ وزيرنا وحده وزير كي صومالية دين تأيوها وقتي سياد بره لأن أقوال لنا وحد ديمت لكن صوفي وحد ماذا كان صوفيزم marka nimanka dhalinyarada noo markay fogfogta badnaayeen waa sagaashameeyadii ay qabsadeen waddanka oo dhan bad salafiyada kuwa sheegtay markaas la weydiiyo waxa la yiri nimanka ikhwaanka la yiraahdo bal nooga warhaniyo nimankani sacuudiga ee wahabiyada sufiyada marka wahabiye waxay salafiyada wahabiye u yaqaanaan mogta markaas buu yiri markaas buu yiri waraabaha buu ugu mahmaa ka aamusan iyo ka soociya ee waada badan keebaa daran buu yiri markaas la yiri ka soociya ka aamusan baa daran ka soociya oo iska ilaalin kartaa mogta kasi feejigaan karta kan nimankani wahabiyadu waa nimanka ciyaaya qayla weynayaasha laakiin nimanka darani waa nimanka يجري بالي يران تقولي وسيا ويجري وقت جالس كتاب في عام وحكم رنجري التفسير كأيو كم رنجري مساجد وين نوع الحياة رنتي سوفيادو لما خلينا تدبس مساجد بالحياة يوتانغ ماشي لو رنجري وي أنا إنجنير كده سيبان هاي يوتانغ مكرس أنا صاحب كيا الله نحرسه ودنتات ayaa wada dhisnay iyo gaalkii meesha u xil saarna la oran jiray Robert baa la oran jiray ka gaalkaasan la shaqayn jirnay aniga ninka saaxiibkay la shaqayn jirnay marka wuxuu yiri warka aamusan baa daran nimanka ikhwaanku marka u jeeda ikhwaan min al-Misr Xasan al-Banna xirtiisu ka hadlayay